Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janaalka Ombi Technology ee ka baxa casharada ICT-ga. Waa anigu Maxamed Cali Bilaal. Waxaa noo socday koorsada la yiraahdo Windows Server 2019. Waxaan u baahanahay maanta inaan DNS ka hadalno. DNS waxa weeye Domain Name Service ama Domain Name System. Marka domain name wuxuu yahay haddii aan sharaxno domain name-ka haddii aan sharaxno waxa yar domain name horta waxa loo soo gaabiyey DNS domain name system-ka wuxuu yahay maadaama oo aan user oo halkan fadhiyo halka kanna uu server yaalo markuu userku u baahan yahay in uu serverka uu soo boqdo mostly web browser ayaan kasoo galnaa annagoo isticmaalayna protocolka la yiraahdo HTTP ama HTTPS oo secure ah marka DNS serverka waa kan qofkii marka DNS-ka wuxuu taraa qofka bini aadanka human being-ku wuxuu wax ku qabtaa ama wuxuu xifdiyaa qoraal ma uusan xifdiyo numbers ma xifdi karo dunida tan haddeer waxaa jira billions websites ayaa jira qof bini aadan ah oo xifdi kara address IP address ma jiro IP address ma jiro wax walba oo dunida tan la isticmaalo oo internet leh ama internetku isticmaalana waxay isticmaalaan wax la yiraahdo IP address marka DNS-kan maadaama uu kan yahay DNS-ka maadaama uu kan yahay qofka kan ka soo qaad google.com ayuu soo galay google-kii ayuu booqday markuu google-ka booqdo system computer-ku wuxuu yaqaanaa waxa la yiraahdo number qoraal ma fahmo marka qoraalkii ayuu wuxuu ka dhigayaa ayuu wuxuu u bedelayaa conversion ayuu ku sameynayaa isagoo IP address ka dhigaya marka google.com waxay leedahay IP address bay leedahay IP address-yada DNS-kooda ayuu ku jiraa DNS server-ka ayuu ku jiraa marka wuxuu garanayaa DNS-ka wuxuu leeyahay user-ka markuu soo dalbado wuxuu leeyahay qofka kan DNS-kii google.com marka lasoo qoro wuxuu leeyahay google.com wuxuu siinayaa IP address-kiisii danna wuxuu u soo saarayaa halkan qofkii page-ka ayuu soo saaraya google.com halkaa google.com waa soo baxaysaa marka serverku DNS-ku waxaan ka fahamnay in uu magaca u bedelo IP address ama IP address-ku wuxuu u bedelaa magaca marka logiga ku jira ama fahamka ku jira DNS-ku waa taas waxa weeye magaciibu wuxuu u bedelayaa IP address ama IP address-kiibu wuxuu u bedelayaa magaca marka haddii IP address google.com ka haddaan website-ka ku qoro google-ka waxaa ii soo baxaya google.com-ka ayaa ii soo baxaya google.com haddaan qoro google.com google ayaan tagayaa haddii google.com aan IP address-ka sare aan ku qoro isla google-ka ayaa soo baxaya because of IP-ga markaan qoro DNS-ka markuu weydiiyo IP-ga wuxuu u bedelayaa name-kii google marka wuu isku lifaaqan yahay DNS-ka maadaama uu halkan google uu ku qoran yahay google maadaama halkan IP address-ka ayaa ku qoran kasoo qaad 10.1.1.100 oo kale ayaa ku qoran marka wuu isku lifaaqan yahay waa conversion weeye waa resolver wuxuu resolve gareynayaa human readable-ka ayuu qofkii IP address-kiisii ma xifdi karo qofka IP address wuxuu xifdi karaa laakiin qoraal intaas qoraal inta website haddii aad taqaanid la cadda wala xisaab laakiin inta website aad taqaanid haddii lagu dhaho IP address-kooda xifdi ma xifdi karid that's why marka DNS loogu baahday marka waxaan u baahanahay inaan DNS ka tagno tools baad tagaysaa tools markaad tagtid DNS ayaad tagaysaa marka DNS wizard ayaa noo soo baxaya wizardka markuu saa kugu soo baxo balaarso halka kan waxaa kuu soo baxaya forward lookup zone reverse lookup zone trusted domain forward-ka ayaa leedahay new zone ayaa leedahay
new zone markaad tirahdid next ayaa leedahay primary secondary next ayaa leedahay to all DNS server running on domain control in this domain on bit next ayaa leedahay zone name ayaa bixinaysaa DNS zone ayaa leedahay next ayaa leedahay allow only secure dynamic updates recommended ka next ayaa leedahay marka finish ayaa leedahay halkaa marka waxaa noo sameysan forwardka marka reverse lookup ayaa tagaysaa wuxuu ku leeyahay add new zone marka halkan new zone ayaa ku daraysaa new zone markaa ku darid halkan saa usoo jiid next ayaa leedahay next halkan marka waxaa ku qoraysaa IP addresska haddii aan soo fiirino sibaan u ilaaway IP addresska local server properties halkan ayaa tagaysaa marka this server ayaan u baahanay inaan DNS ka dhigno marka halkan waa ka bedelaysaa waxay noqonaysaa 10.1.1.5 ayaa leedahay siduu internetku aado okay ayaa leedahay close iska xir DNS ka tag halkan marka waxaa ku qoraysaa 10.1.1 marka halka kan ayuu wuxuu ku darayaa saddexda kaliya ayuu u baahan yahay .1 then halkaas wuxuu ka raacinayaa in IP arba halka marka waxaa leedahay next ayaa leedahay next finish hadda waa kan waxaad tagaysaa wizardka ayaa tagaysaa waxaad tagaysaa forwarder then halkan refresh then refresh hadda soo galay ambit halka kan ayaa tagaysaa Windows server property waa leedahay okay halkan aa raadinayay haddii aad ka noqotid halkan aad joogtid waxaa ku dhufanaysaa forwardka ayaa furaysaa marka hore saan ayaa tahay halkan aad furaysaa forwardka ayaa furaysaa then halkan ayaa furaysaa marka tanaa ku dhufanaysaa halkan ayaad imaanaysaa property ayaa tegaysaa update associate pointerka ayaad tig siinaysaa apply ayaa leedahay okay ayaa leedahay marka saas noogu samaysan yahay hadeer xaggaas ayuu noogu jiraa refresh ayaa tahay DNS keeni waa kaas okay DNS keeni hadeer property that's it DNS keeni waa kaas okay baa leedahay marka hadda DNS ku noo samaysan yahay waxaa leedahay halkana tagaysaa PowerShell ayaa furaysaa PowerShell markaa soo fudhid ipconfig markaa fiirisid waa 5 okay ns lookup you see Windows server this one IP addresskiisa waa kaas okay waxaan qorayaa ws vr ad.onbit.local markaan dhigsiyo wuxuu isiinayaa serverkii iyo IP addresskii namekii okay IP addresska qor 10.1.1.5 waa inuu resolve isameeyaa waa inuu
magaca ayuu ku bedelaa. You see magacii namekii waa kaas. So marka serious ayaa leedahay. Marka waa in aad pink samey kartaa 10.1.5. You can pink it. So haddii aad rabo in aad pink ku sameysid onbit.local. Yes, you see haddii ay la fiirisaan waxaan ku yiri magaca marka aad qodhid wuxuu u bedelayaa IP address. haddii halkan la fiirisaan pink onbit.local ayaan qoray, magaca ayuu igu bedelay, IP addresska ayuu ku bedelay. marka DNS-ku wuxuu resolve ku sameeyaa magacii namekii buu wuxuu u bedelayaa u convert garanaya IP addresska. That's why marka haddii aad hadda qodhid pink Windows Server /8 of course CMS pink Windows Server DNS keenu loo shaqeynaya everything aad u baahan. marka saan ognahay DNS wuxuu yahay magaca ayuu bedelaa IP address ama IP address ayuu u bedelayaa magaca. marka waxa loola jeedo muhiimadda ugu weyn ee laga jeedo okay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.